ha igu eedayn dib u dhaca doorashada waa ciwaanka maqaal faahfaahsan oo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ku qoray barta siyaasadda arrimaha caalamka. الله حيون داعادة الله حيون دالنا الله حيون داعادة الله حيون دالنا دغذا هوسين. madaxweyne Farmaajo waxa uu ku bilaabay qormadiisa si looga digtoonaado oo mibax awoodeed markii uu dhamaaday muddaxileedkayga oo ku ekaa Febraayo 8 2022 golaha shacabku waxay meel mariyeen xeer hoosaad lagu qeexayay in xukun wareejinta ay ku imaan karto doorasho oo kaliya taas oo micnaheedu yahay mas'uuliyiinta talada hadda haysa inay baaqi ku sii ahaan karaan xukunka ilaa dib looga doorto ama looga guuleysto hanaan doorasho. dib u dhaca doorashooyinka dalka ma aha mid aan anigu rabo inaan xukunka ku joogo sida ay been hawaaska ku doodayaan ee waa curyaamin siyaasadeed dowladda federaalka uga yimi qaar ka mid ah maamulada xubnaha ka ah. isfahamwaaga waxa gundhigu ahaa higsiga dowladayda oo ahaa hanaanka caalamiga ah ee doorasho toos ah oo ay caqabad ku noqdeen kuwa doonaya doorasho dadban taas oo awood siinaysa kooxo kooban isla markaasna dafiraysa codka muwaadinka ee ka midka ah xuquuqda asaasiga ah. waxaa la joogaa xilligii beesha caalamku ay isweydiin lahayd sabab ay odayaal qabaa'il iyo hogaamiyaal maamul goboleed ay 4 sano kasta doorashada ugu afduuban tahay. maxay tahay danta gaarka ah ee ugu jirta ilaan la maqlin codka malaayiin shacab kuwaas oo ay sheegaan inay matalaan. madaxweyne Farmaajo qoraalkiisa wuxuu ku xusay in hanaanka doorashada uu soo bilaabay markii uu xukunka qabtay Febraayo 2017 balse markasta ay jidgooyo ku ahaayeen kooxo kooban oo aan raalli ka ahayn in Soomaaliya ay u gudubto doorasho qof iyo cod ah. madaxweynaha qaranku waxa uu qalinka ku soo koobay inta goor ee uu tanaasulay shacabka dartiis. waxaan ka sariiganayaa in doorasho dadban aan xilka ku qabtay hadafkayga ugu horeeyana wuxuu ahaa inaysan dib dambe u dhicin nidaam qabali ah oo la isku doorto oo aan awoodda shacabka dib ugu celiyo. waxaanse uga tanaasulay inaan fowdo iyo qalaase dambe dib loogu laaban. madaxweyne Farmaajo wuxuu maragmo doonto ka dhigay in heshiiskii doorasho ee Sebtembar 17keedii ay maamuladu gacantooda ku soo qorteen markii dambena ay dib uga laabteen kadib markii Jubbaland iyo Puntland safar ku kala aadeen dowladaha Kenya iyo Imaaraadka Carabta oo aan murtaax ku ahayn horumarka Soomaaliya. madaxweyne Farmaajo wuxuu dul istaagay inuu saxiixay xeer hoosaad dhigaya in muddo 2 sano ah xukuumadda hadda joogta looga rabo inay dalka ka hirgeliso doorasho qof iyo cod ah kaas oo Abriil 12keedii aqlabiyad ay ku meel mariyeen golaha shacabka oo ah hay'adda rasmiga ah ee sharciyad buuxda u haysata go'aanka gaarista arrimaha cakiran. nasiib darro go'aankaasi dawliga ah kooxo hubeysan ayaa foodo uga falceliyay aniga oo ah madaxweynihii dalka ayaa May 1deedii golaha shacabka dib ugu laabtay kana codsaday in go'aankooda ay dib uga laabtaan hanaanka doorashadana sharciyad loo siiyo inuu daadihiyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble. madaxweyne Farmaajo qoraalkiisa wuxuu ku soo gunaanaday Soomaaliya waxay wajahaysaa caqabado dowladnimada iyo horumarka ah waxaana cadeyn u ah maamulida sare hoosaadka inaysan dalka u horseedin doorasho shacab. mustaqbalka dhow waxa waajib naga saaran yahay inaan u jihaysano dardargelinta daajidinta dowladnimo. si kastaba ahaatee waxaan ku gowracannahay in kala guurka dimuqraadiyadeed uu ahaado mid Soomaali leedahay Soomaalina majaraha u hayso. si aan taas u gaarno waxaan had iyo goor heegan ugu jirnaa doorasho hanaan caalami ah inagoo jaranjaro aan uga gudubno ka dhiganayna doorashada dadban si ummadda Soomaaliyeed loo samata bixiyo loogana samata bixiyo xayndaabka xanuunka badan ee ay ku xaniban yihiin loona gaarsiiyo xorriyad ay hoggaanka siyaasadda ku metela ku doortaan.